Waddanka India waa waddanka saddexaad ee ugu muslimiinta badan dunida marka laga soo tago Pakistan iyo Indonesia, taasoo la macno ah muslimiinta India ku nool waxa ay u dhigmaan mujtamaca ku nool waddanka ugu dadka badan Afrika ee Nigeria. Ama si kale haddii aan u dhigno, muslimiinta India ku nool waxa ay u dhigmaan waddanka labaad iyo waddanka saddexaad ee ugu dadka badan Afrika oo la isku daray waa Masar iyo Ethiopia. Saas oo ay tahay, muslimiinta India waa dad laga tira badan yahay oo waxa ay u dhigmaan 15% dadka ku nool waddanka India. Maxaa yeelay Hinduuga India ayaa wax badan ka badan muslimiinta ku nool India, taasoo ka dhigaysa dad laga tira badan yahay. taas darteed dhowrkii biloodba waxaan maqalnaa meel ay isku haystaan muslimiin iyo Hindu oo ka mid ah waddanka India, taas oo dad badan ay ku tilmaamaan muslim nacayb inay salka ku hayso. Laakiin dowladda India ay isku dayday in ay mar kasta inkirto oo ay ka dhigto waxyaabo kale, waxa ayna u bixisaa magacyo kale. Haddaba waxaan rabaa in aan halkan ku soo gudbiyo 21 tusaale oo muujinaya in uu waddanka India ka jiro muslim nacayb aad u baahsan, kaas oo gaaray heer aan indhaha laga qabsan karin. Tusaalaha koowaad ee muujinaya in waddankaas uu ka jiro muslim nacayb saa'id ah waa fikradda Hinduudva naftirkeeda. fikraddan Hinduudva oo aad u soo caanbaxday waayadii ugu dambeysay, dadka fikraddaas faafiyana ay ugu horeeyaan xisbiga hadda talada haya ee BJP. fikraddaas ayaa sheegaysa in waddanka India ay xaq u leeyihiin oo keli ah in ay ku noolaadaan dadka haysta diinta Hinduuga. ciddii aan ku qanacsanayn in ay u hoggaansato qiimaha iyo dhaqamada Hinduuga waa inay isaga tagto waddanka. fikraddaas ayaa odhanaysa. fikraddaas waxaa faafiya xisbiga talada haya, xisbiyo kale oo hoos taga, hay-ado ay ka mid yihiin RSS iyo shakhsiyaad aad u tiro badan oo aan la gamban oo 24 saac la taagan meel kasta in fikraddaasi ay sax tahay. tan labaad waa la wareegidda Kashmir oo muddo dheer loo aqoonsanayo dhul lagu muransan yahay, ayay dowladda India go'aansatay in ay la wareegto, ayna soo dejiso dhulna ka siiso dad Hinduu ah si ay u baraxdo dadka degan gobolkaas oo u badan muslimiin. bedelidda goobo iyo magacyo. tusaalooyinka aad ayay u tiro badan yihiin, laakiin waxaan tusaale u soo qaadanaynaa masjidkii caanka ahay ee Babri Masjid oo inta la burburiyey ay maxkamadi ogolaatay in loo bedelo macbad Hinduu ah. waxaa kaloo ka mid ah magaalooyin badan oo laga bedelay magacyadii, sida magaalo la dhihi jiray Allah Abad oo loo bixiyey Prayagraj. waxaa ka mid ah magac dhaamidda saxaafadda waddanka India ayaa maalin kasta ku soo celceliya erayo magacdil ku ah muslimiinta, sida tusaale ahaan in madarasooyinka lagu baro dadka argagixisanimada, in falalka argagixiso oo waddanka ka dhaco dhan ay ka dambeeyaan muslimiintu, taas oo aan sax ahayn. waxa ay ugu yeeraan jacaylka jihaadka, oo ay ku eedeeyaan in muslimiintu ay jacayl ku abuuraan gabdha Hinduu ah kadibna ay guursadaan inta muslimiyaan si ay ugu badsadaan dadkooda. in muslimiintu aysan waddanka daacad u ahayn, wadaniyiinna ahayn, ee ay niyadda kala jiraan waddanka Pakistan oo kale. shanaad waa dib u qorista taariikhda. waxaa la sheegaa in islaamku ka soo tali jiray waddanka India muddo 800 oo sano ah. 800 oo sano dadka talinayay waxa ay isugu jireen dabcan dadyaabo meelo kale ka yimid iyo dadkii Hinduuga ahaa jiray oo muslimay. dadkaas 800 oo sano talinayay waxyaabo badan oo wanaagsan ayay ku soo kordhiyeen waddanka. waxyaabo ay qaldaanna kolley way jiraan, laakiin waxaa caadi ahayd in taariikhda sida dhabta ah loo qoro, iskuulladana lagu dhigo. tusaale ahaan, boqorradii waddanka ka soo tali jiroo dhan oo muslimiinta ahay in loo aqoonsanay inay ahaayeen boqorro waddanka uu lahaa. laakiin muddooyinkii dambe waxaa bilowday in taariikhda noocaasa buugaagta laga tirtiro, iskuulladana lagu dhigo in dadka noocaasa aysan ahayn boqorro, ay ahaayeen dad waddanka ku soo duulay muddadaas 800 oo sano ahna ay ahayd gumaysi. lixaad waa iska hor imaadka hubaysan ee maalin kasta dhaca ee u dhexeeya muslimiinta iyo Hinduuga. muddo dhowr bilood markaa joogtaba waxaa maqlaysaa gobol hebel waxaa isaga hor yimid oo isku dagaalay muslimiin iyo Hinduu. mar kastana dhibaatada ugu weyn waxay soo gaartaa muslimiinta. barakacinta, dilka iyo waxyaabaha noocaasa waxay u badan yihiin dhanka muslimiinta, maadaama laga tiro badan yahay. dowladda iyo hay-adaheeduna inta badan ay la jiraan Hinduuga. toogashada dhallinyarada lagu sheegay argagixisada. waxaa iska caadi ah in ciidamadu ay toogtaan rag dhallinyaro muslimiin ah, kadibna ay dhahaan argagixiso ayay ahaayeen, wayna nala dagaalameen, sidaas ayaana ku dilay. qodobka 8aad waxaa loogu yeeray diiwaanka qaran, oo dad badan oo muslimiin ah lagu eedeeyey in aysan Hindi ahayn, oo dad badan laga saaray diiwaanka. tusaale waxaa kuugu filan gobolka Assam oo dad badan oo muslimiin ah lagu eedeeyey in aysan ahayn
dad u dhashay waddanka inkasta oo ayaga iyo waalidiintooda iyo eewayaashood ay haystaan kaararka aqoonsiga ee waddankaas haddana waxaa lagu eedeeyey inay yihiin tusaale ahaan bangaladeshi ama wax lamid ah sidaas darteedna sharciyada waa lagala laab qodobka 9aad sharci u dadejinta hinduuga wadamada kale ka yimid tusaale ahaan haddii qof hindu ah oo ka soo cararo waddanka Pakistan ama Bangladesh su'aal la'aan hore ayaa sharci laga siinayaa laakiin haddii uu qof muslima ka soo cararo waddan kale wax la siinayo ma jiraan amaba sida kan loogu dadejiyo looguma dadejinayo oo su'aalo ayaa laga keenayaa badan sida aan ku xasuusano markii Rohingya ay ka soo carareen Myanmar waxyaabihii ay ku dhigeen waa ogeyn isku eedaynta gowracyada lo'da waxaa caadi ah in qof inta suuqa lagu dilo la yiraahdo hilib lo ayuu gadayay ama lo ayuu gadaya ama lo ayuu gaari ku siday iyo waxyaabo lamid ah mar kastana waxay ku soo celceliyaan in lo'da darteed ay waxna u dili karaan ayagana ay u dhiman karaan maadaama ay lo'da caabudaan 11 hanjabaadyada xisbiyada hinduuga ah xisbiyada hinduuga ah maalin kasta waxay ku soo celceliyaan haddii la doorto ay waddanka ka ceyri doonaan dadka aan ku diinta ahayn waana wax iska cad ay maalin kasta idaacadaha la taagan yihiin ceyrinta hay-adaha iyo wadaadada caanka ah ee muslimiinta ahay tusaale waxaa kuugu filan aaway Dr. Zakir Naik iyo hay-addii RIF oo la xasuusto waxa ay mu'tamar qaban jireen sanad kasta waddanka India aaway Dr. Zakir Naik iyo wadaado badan waa wanted oo ma tegi karaan India maanta goobaha karantiilka waxaa la sheegaa in goobo badan oo cusub la dhisay si loogu karantiilo dadka sharciyada lagala laabtay kuwaas oo ah muslimiin 15 caburinta dadka muslimiinta ah dadka muslimiinta ah kama hadli karaan dhibaatooyinka gaara oo waxaa lagu oranayaa haddii aad u sabri karin waxyaabaha kugu dhacaya orod Pakistan aad aad ku qanacsanayn waxyaabaha waddankan ka dhacaya orod ka tag iyo waxyaabo lamid ah waxaana jira dad caan ah oo arrintaas lagu yiri oo duuban 16 caan bixida iyo guuleysiga xisbiyada xaq jirka ah xisbiyo badan oo xaq jir ah ayaa ku guuleysay doorashooyinka sababtoo ah waxay dhibaateeyeen ama laayeen muslimiin waxaana ka mid ah ninka hadda talada haya iyo xisbigiisa 17 la dagaalanka luqadda Urduga luqadda Urdugu waa luqad dhalatay intii muslimiintu ay ka talinayeen waddanka India waana luqadda looga hadlo Pakistan inkasta oo India aad looga hadli jiray luqadda Urduga ilaa haddana luqadda Hindiga ay ka buuxaan erayo Urdu ah dowladda India waxa ay isku dayaysaa inay ciribtirto luqaddaas ugu yaraan waddankooda ka ciribtiraan inkasta oo la ogyahay in aan laga maarmin luqadda Urduga gaar ahaan xagga suugaanta iyo gabayada oo ay caan ku tahay 18 filimada laga sameeyay taariikhda dabagedisan dadka filimada Hindiga fiirsan jiray waagii hore waxay xasuustaan in qofku marka uu matalayo muslim uu ahaa jiray qof daacad ah saaxiibtinimada ku fiican aan qamra cabin sadaqa badan iyo waxyaabo lamid ah laakiin maanta filimada jira qof haddii uu matalo muslim ama waa argagaxiso ama waa tuug ama waxyaabo lamid ah sidoo kale waxaa jira filimaan laga jilayo dagaalo muslimiin looga guuleystay oo aan dhicin oo been ah oo taariikh laga jilayo sidoo kale boqoradii muslimiinta ee waddankaas ka tali jiray waxaa maanta loo muujinayaa in ay ahaayeen dad waalan ama aad u xun ama waxyaabo lamid ah oo laadariin ah halka waayadii hore loo muuji jiray in ay ahaayeen boqorro caadi ah qodobka 20aad waa cadaalad darrada ka taagan maxkamadaha India waa arrin iska caan ah haddii qof muslim ah iyo qof hindu ah isdacweeyaan in loo eexdo qofka hinduuga ah waxaa sidoo kale caadi ah in qof caadi inta la soo qabto lagu eedeeyo inuu gabar jacayl ku abuuray ee la xukumo kadib ama inuu lo gowracay iyadoo aan jirin kadibna la maxkamadeeyo ama waxyaabo saas ah ama argagixisnimo lagu soo eedeeyo ee la xukumo iyadoo aan la hubin 21 waa buunbuuninta firqooyin gaar ah ama kooxo gaar ah oo muslimiin sheegta tusaale ahaan dowladda India waxa ay aad u buunbuunisaa aadna u jeceshahay firqada loo yaqaano Axmadiyada ama Qadiyaanka taas oo culimadooda ay aad u buubuuniyaan kooxdaas oo wadaadada muslimiintu ay sheegaan inaysan islaam raad ku lahayn isku soo wada duub oo inkasta oo muslim nacaybka uu yahay mid systematic ah waddanka India oo ah wax dowladda iyo shacabku ka wada midaysan yihiin haddana waxaa la isweydiinayaa si qoray iyo qaacis la isla tuuro may nacaan dhaqamada wanaagsan ee ay ka soo gaareen muslimiinta ama ay ka dhaxleen iyo xataa cuntooyinka iyo waxyaabaha lamidka ay ka dhaxleen muslimiinta taas oo dadka dhaqamada qiyaasa ay ku tilmaamaan haddii meesha laga saaro muslimiinta iyo dhaqamadii ay la yimideen waddanka India waxa soo hara waxa ay noqon doonaan wax ilaahay xaalkooda ogyahay maxaa yeelay waxaa la ogsoon yahay cuntooyin badan oo xataa ee waddanka India laga cuno oo ay ku faanaan maanta waa cuntooyin asal ahaan ka yimid muslimiinta sidoo kale dhaqanno aad u tiro badan oo ay ka dhaxleen muslimiinta ayaa jira oo maanta haddii laga xayoobiyo waddanka India ay soo baxayaan wax ilaahay xaalkooda ogyahay